war ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu fasaxay banaanbax uu soo qaban qaabiyay golaha bulshada Banaadir kaas oo la qorsheeyay inuu caasimadda ka dhaco 13 bishan koobaad ee Janaayo sanadka 2022 oo ku beegan maalinta biri oo Khamiis ah. taliyaha ciidanka booliiska Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaa lagu amray in ay sugaan amniga mudaharaadka halka guddiga qabanqaabada dibadbaxa la faray inay ka fogaadaan wax rabshado ah sidoo kalena si dhow ula shaqeeyaan hay'adaha sugaya amniga dibadbaxayaasha iyada oo la tixgelinayo xuquuqda dastuuriga ah ee bulshadu u leedahay in ay qabsadaan isu soo bax nabadeed sida ku cad qodobka 20aad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya waxaa la farayaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir in ay sugaan amniga dibadbaxayaasha muddada ay sameynayaan dibadbaxa nabadeed ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya. warqadan ay xukuumaddu ku ogolaatay qabsoomidda mudaharaadkan ayaa ku soo aadaysa xilli shalay uu maamulka gobolka Banaadir soo saaray amar uu ku joojinayo banaanbaxa isla markaana uu ku sheegay in qaswadayaal loo aqoonsan doono cidii ka qayb gasha banaanbaxaasi. farmaajo iyo kooxda u adeegta ayaa wada dadaalkii ugu dambeeyay oo ay ku hor istaagayaan banaanbaxa kaas oo ay rumaysan yihiin in haddii aan la carqaladeynin ay ka soo qayb gali doonaan dadkii ugu badnaa oo ka soo horjeeda madaxweynihii hore ee dalka oo hadda sharci darrada ku degan madaxtooyada Soomaaliya. taliyaasha la amray oo ay ka mid yihiin saraakiil ku daaban farmaajo ayaa dhankooda laga sugayaa midka ay dhaqan gelinayaan amarada ka soo kala baxay xukuumadda iyo gobolka Banaadir. taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole wuxuu horay u hor istaagay banaanbaxyo ka dhan ahaa farmaajo hase yeeshee sida muuqata waxaa hadda hortaala laba daran mid dooro.